السلام عليكم. ولان waxay tagay way tageen wax tagayna tagsiimaad ma leh hilmaam dhibaatooyinkii hore ee ku soo maray si ay hadda kuugu suurta gasho inaad ku noolaatid nolol wanaagsan inaad ka fakartid wax tagay oo aadan waxba ka bedeli karinna midaas waa waali ayaan ku tilmaami karnaa ka fakarka dhacdooyinkii hore iyo noloshii hore kuma suurta gelinayso in aad gaartid meesha aad rabtid inaad gaartid haddii aad diiradda saartid noloshaadii hore haddii aad diiradda saartid dhibaatooyinkaagii hore haddii aad diiradda saartid dhibaatooyinka hore kuu soo maray haddii aad diiradda saartid dadkii hore ku soo xumiyay haddii aad diiradda saartid qofkii hore ee qalbiga kaa soo dhaawacay midaas adiga faa'iido kuma lahan adiga unbaa isdaalinaya noloshaadana dayacaya waqtigaagana iskaga luminaya ka fakarka dhibaatooyinkii hore ha isdhihin aniga maxaa nolol adag ugu jiraa dadka kale nolol wanaagsan ugu jiraa aniga maxaanan u haysan meelaan seexdo dadkaas kalena ay nolosha meesha ugu dambeysay u maraysa aniga maxaan gudaha uga gubanayaa dadkaas kalena ay dhoola cadeynayaan farxad ugu jiraan maxaan anigu ugu jiraa nolosha noocaana maxay dadka hadalkaas ii dhahayaan maxay dadka waxaas igu dhahayaan walaal anigaba waan awoodaa inaan fiiriyo oo aan raaco hadallada dadka laakiin ma rabo maxaa yeelay waxaan rabaa maanta inay noqoto maalinteeda waxaan rabaa inay maanta ii ahaato maalin cusub nolol cusub waxaan rabaa in duruuftii soo martay aan cashar ka barto horeyna uga socdo waxaan rabaa inaan ogaado sidii aan uga gudbi lahaa duruufahan adag noloshan adag iyo dhibaatooyinkan waxaan rabaa inaan ogaado awoodaha uu rabbi subxaanahu wa tacaala igu manaystay waxaan rabaa inaan iska furo xargihii ay noloshii hore igu xirxirtay waxaan rabaa inaan bedelo wax walba oo caqabad ku ah noloshayda waxaan ogahay in uu Allah subxaanahu wa tacaala kaliya ugu caawin karo inaan gaaro meesha aan rabo maxaa yeelay dadku ma awoodaan kala aan hadal ka ahayn inay wax ka sheegaan waxaan akhristaa markasta qul lan yusiibana إلا ما كتب الله لنا نقوم دعيان إلا وحو الله سبحانه وتعالى إنه قريمة هنا ولا الدباتين كي كسامري هدي آذان كميران صورة قل كوما أهان إنها تكون ولاتيد نلو بناكسن صورة قل كوما أهان إنها تجيسينه كون ولاتيد عبتدنا تكسرتيد هدي آذان نرش الله دقالين صورة قل كوما أهان إنها أود هشيد هدي آذان كعين مركز تأت كفتيد عيب ما أهان ولا إنها تكفتيد لكن وحا عيب meeshaad ku kuftay inaad iska sii joogtid oo aadan ka kicin suurtagal kuma ahan inaad ku noolaatid nolol raaxo leh haddii aadan u adkaysan waqtiyada adag dheh walaal gadaal ayaan ku tuuray dhacdooyinkii hore iyo dhibaatooyinkii hore iyo noloshii hore hadda laga bilaabana waxaan diiradda saarayaa mustaqbalkayga hadhihin aniga maxay waxaan igu dhacayaan bal waxaad dhahdaa aniga nolosha way soo imtixaamtay وانا كجدبي الله سبحانه وتعالى وحو يقولها إن مع العسر يسرا عليسك فديت أيا كدن بيا وقونا ولا صورة قلكو ما أهن إن قرتد جبتر كصوص عضا إن نرش عضا هذه أد نرش عضا كدي عديد أقرنتا جبتر كهراء هو وقلان تكتاد هذه هراء إن يسامين كيالاتو فعفنتا بوغاقو عصب تاني waa qisadaada noqo geesi marka aad qoraysid qisadaada han sare yeelo hami sare yeelo adiga waxaa tahay geesi wixii hore gadaal ku tuur haddana qorshe noloshaada cusub waxaana dhahdaa noloshii hore gadaal ayaan ku tuuray si aan ugu noolaado middan cusub noloshii mugdiga ahayd gadaal ayaan uga soo tegay si aan u galo mid ifaysa habeenkii waan ka soo baxay maalintii ayaan soo galay mugdigii waan ka soo baxay nuurkii iyo iftiinkii ayaan soo galay ugu dambeyntii waxaan ku leeyahay mustaqbal ifaya ayaa adiga ku sugaya haddaba meesha ka kac